jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed kuna nool waddankaasi Koonfur Afrika ayaa waxa ay walaac xoog leh ka muujinayaan tacadiyo lagula kacay mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo ku ganacsada kuna noolaa muddo dheer dalka Mozambique kaasoo lagu magacaabo Xaaji Abuukar Eelay waxaana dhibaatooyin kala duwan u geystay rag hubaysan oo ay soo adeegsadeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida kuwaasoo ka soo jeeda deegaanada dawlad goboleedka Puntland sida ay sheegayaan warar aanu helnay waxaa waddanka Mozambique ka jira tacadiyo ay geystaan rag hubaysan oo ay soo adeegsadeen ganacsato Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada Puntland sida ku dhacday Xaaji Abuukar oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsada waddankaasi Mozambique raggan ka soo jeeda Puntland ee ku sugan waddanka Mozambique ayaa dhibaatooyin badan u geystay ganacsato Soomaaliyeed waxaana weerar lagu soo qaaday Xaaji Abuukar Eelay oo gacanta ay ku dhigeen rag hubaysan jirdil u geysteen isla markaana ay xabsiga dhigeen kadib markii ay soo adeegsadeen rag ganacsato ah oo ay ka mid yihiin Axmed Warsame Nuur oo loo yaqaano Digir iyo Maxamed Yuusuf Qadaafi kuwaasi oo la sheegay in ay had iyo jeer dhibaatooyin u geystaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mozambique maadaama ay ganacsigooda dartii u doonayaan inay u dhibaateeyaan cid waliba oo ay u arkaan inay xagga ganacsiga uga horumarsan tahay dalka Mozambique qaar ka mid ah waxgaradka ku nool waddanka Koonfur Afrika iyo waddanka Mozambique ayaa waxa ay rumaysan yihiin haddii aan wax laga qaban dhibaatooyinka raggaasi ay ku hayaan Soomaalida ku nool waddamadaasi in khatartu ay intaasi ka sii badan karto maadaama hadda dhibaatada jirta ay dareemayaan ganacsatada Soomaalida ay ka dambeeyaan isla ganacsato kale oo Soomaaliyeed waxa waxgaradku ay dalbayaan in iyaga oo dalkii ka maqan qurbahana ku sugan in aysan dhibaato isu geysan dhexdooda malaaqa guud ee beelaha Digil iyo Marifle ee qurba joogta malaaq Jeelle Cali Nuur ayaa waxa uu ka hadlay arrintan waxaana uu wax laga xumaada ku tilmaamay Axmed Warsame Nuur Digir iyo Maxamed Yuusuf Qadaafi in ay dhibaato si toos ah ugu geystaan ganacsado kale oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed kaasoo lagu magacaabo Xaaji Abuukar Eelay waxaana uu sheegay arrintaasi inay tahay wax laga xumaado oo aan ku wanaagsaneyn walaaltinimada iyo isjacaylka ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeya meel waliba oo ay joogaan waxaana uu baaq u diray malaaqa waxgaradka deegaanada maamul goboleedka Puntland oo uu ka dalbay inay soo farageliyaan caqabadaha ka dhex jira ganacsatada Soomaalida ee waddanka Mozambique kuwaasi oo la aaminsan yahay in ay mid ka mid ah ganacsatadii isugu tageen oo ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan naftiisa iyo maalkiisaba ganacsato ka soo jeeda deegaanada Puntland malaaq Jeelle Cali Nuur ayaa sheegay in haddii aan tani wax laga qaban ay keeni karto in shacabka Soomaaliyeed ay ku dagaalamaan iskuna dhibaateeyaan meel waliba oo ay wada joogaan oo dalka dibaddiisa ah ugu dambayn ayaa malaaqu waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la kala badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku wada nool si aysan iyaga dhexdooda u dagaalamin waxaana uu ka codsaday labada ruux ee loo haysto hadda dhibaatada la gaarsiiyey ganacsadaha Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Xaaji Abuukar Eelay inay dib uga laabtaan dhibaatadii ay geysteen oo raaligelin ay ka bixiyaan isla markaasina aysan u gafin mar kale muwaadin Soomaaliyeed sharafkiisa iyo maalkiisana aysan ku xadgudbin shacabka Soomaaliyeedna waxa uu ka dalbay in ay ka fogaadaan wax waliba oo keeni kara isku dhac beeleed iyo waliba dirir sokeeye oo qabyaaladaysan arrintaasi oo uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed wax badan ay kaga lumeen isagoo ku baaqay in shacabku ay midoobaan maadaama ay yihiin walaalo Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan tacadiga lagula kacay Xaaji Abuukar Eelay ayaa waxaa si weyn looga hadalhayaa waddanka Koonfur Afrika iyo dalka Mozambique oo dhibaatadan ay ka dhacday iyadoo ay xusid mudan tahay in kulamo lagu qabtay dalka Koonfur Afrika looga hadlay tacadiga loo geystay muwaadinkani Soomaaliyeed iyadoo oo dadkii ka soo qayb galayna dhammaantoodba ay dalbayeen in xorriyadiisa la siiyo Xaaji Abuukar isla markaasina la ilaaliyo sharafkiisa iyo maalkiisa mar kalena aysan soo noqon in lagu xadgudbo oo la dhibaateeyo muwaadin Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool